Bismillahirrahmanirrahiim. Subax wanaagsan dadkana dhageysanayo kuna soo dhawaada warka Tubsan Media. Warka waxaa idin soo jeedinaya anigoo waa beriya qodobada aan idin haynana waxaa ugu waaweyn. Madaxweynaha maamulka Puntland oo u yeeray jeneraal uu ku jiro Morgan iyo qorshaha ka dambeeya. Yuusuf Dabageed gudoomiyihii xilka laga qaaday oo ka badbaaday isku day dil. Mareykanka oo culeys weyn saaraya wada shaqeynta Soomaaliya iyo Somaliland oo shaacisay inay soo musaafurisay nin diinta Kiristaanka faafin jiray. Safarka ra'iisul wasaare Kheyre ee Dhuusamareeb iyo qorshihii ka dambeeyay. Qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad ku daawan doontaan warka Tubsan Media ee u diyaar garooba warkaasi oo faahfaahsan. aan ku bilaabay sidaad hordhaca warkeena Tubsan Media aad ku daawateen. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa shalay qasriga madaxtooyada Garowe qada sharaf ugu sameeyay qaar ka mid ah generaalada Puntland oo uu ka mid ahaa madaxweynihii hore ee Puntland Generaal Cabdisamed Cali Shire. kulankani qada sharafta waxaa madaxweynaha ku heliyay madaxweyne ku-xigeenka Puntland Mudane Axmed Cilmi Cismaan Crash, saraakiil ciidan iyo la taliyaal amniga xubnaha uu u yeeray madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa waxaa ka mid ah Generaal Maxamed Saciid Xirsi Morgan oo aad looga yaqaano Soomaaliya. Madaxweynaha Deni ayaa wada qorshe xoogan oo lagu tayeynayay mada Puntland taasoo qayb ka ah lanqaadidii uu sameeyay inta aan la dooranin, isagoona sheegay inuu soo celin doono dhammaan dhulka laga haysto Puntland oo ay haysato Somaliland. Deni ayaa sida uu sheegay tiigsanaya dhismaha ciidan iyo ahmiyadda koowaad la siiyo waxtarka iyo dhiirigelinta ciidamada qalabka sida si loo soo afjaro kooxaha xag jirka ee Al-Shabaab iyo sidoo kale in la sugo amniga xuduudaha dalka. Ugu dambeyn, madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa mas'uuliyiinta kala tashanaya xaaladaha amni ee dalka maadaama Puntland ku dhisan tahay wada tashi, tala wadaag iyo wada hadallo dhan walba leh. Jarnaaladuna ka mid yihiin waxgaradka iyo inargaradka dalka ee arrimaha amniga ayuu warkiisa ku soo gabagabeeyay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni. Gudoomiyihii maamulka gobolka Hiiraan ee dhawaan xilka ka qaaday madaxweyne Waare xilkaasi diiday Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa sheegay in markii saddexaad uu ka badbaaday dil qorsheysan. Shir jaraa'id oo xalay ku qabtay magaalada Beledweyne ayuu ku sheegay in shalay lasoo weeraray isla markaana ciidamo Soomaali ajnabi ah ay soo weerareen si ay u dilaan balse uu dilkaasi ka badbaaday. Yuusuf Dabageed ayaa intaasi ku daray in dulmi cad lagu hayo shacabka reer Hiiraan isla markaana mas'uul uu ka yahay madaxweyne Maxamed Cabdi Waare iyo xulufo uu wato sidoo hadalka u dhigay. ayuu ugu baaqay in talada Hiiraan la soo farageliyo isla markaana 2 sano iyo bar dhibaato lagu hayo shacabka reer Hiiraan. Hadalka Yuusuf Axmed Hagar Dabageed gudoomiyihii xilka laga qaaday ayaa ku soo aadaya xilli maanta la sheegay in hoyga uu ka degan yahay ay tageen ciidamo ka tirsan kuwa AMISOM. Dowladda Mareykanka ayaa culeys weyn saaraysa wada shaqeynta Soomaaliya iyo Somaliland. Danjiraha Mareykanka u fadhiya Soomaaliya Donald Yamamoto u waramayay mid ka mid ah telefishinada Soomaalida ayaa waxa uu ka hadlay doorashooyinka Somaliland iyo wada shaqeynta Soomaaliya iyo Somaliland. Danjire Yamamoto ayaa sheegay in Mareykanku uu aaminsan yahay in xasiloonidu ay ku imaanayso dowlad wanaag in la oofiyo ballamaha dhowrista dimuqraadiyadda ee loo qaadayo hogaamiyayaasha iyo guud ahaan bulshadaba. Yamamoto ayaa sidoo kale waxa uu ka dhawaajiyay in cid kasta oo doonaysa inay maalgashi ka samaysato Soomaaliya ay marka hore daraasad ku sameyn doonto dowlad wanaagga ka jirto deegaanadaasi.
waxay imaaneysaa in hadda kadib ay kusoo jeestaan indhaha dunida. Taasi macnaheedu waa in Soomaaliya iyo Somaliland balse si gaar ah indhaha loogu hayn doono sida ay ula macaamilaan xuquuqda aadanaha, hay'adaha xuquuqda ee rayidka, ammaanka, sida ay dadkoodu ula macaamilaan, iyo sidoo kale habka ay haweenka iyo carruurta ula shaqeeyaan, ayuu yiri Danjire Yamamoto. Danjire Yamamoto ayaa waxaa kaloo uu hoosta ka xariiqay in Somaliland aysan weli aqoonsi ka helin beesha caalamka, sidaas daraadeedna uu Mareykanku u arkayo in xoogga saaro in dowladda federaalka iyo Somaliland iyo dhammaanba maamul goboleedyada dalka ay sameeyaan isdhexgal xagga dhaqaale iyo xag walba. Yamamoto ayaa si gaar ah carabka ugu dhuftay isdhexgalka Soomaaliya iyo Somaliland in wax badan ka bedeli doono sida hadda ay yihiin, wuxuuna yiri runtii haddii aad eegto Somaliland iyo Soomaaliya horusocod ayay sameeyeen, waana caawiyaan, hore ayay u socdaan. Waxa aan filayaa in 5 sano ee soo socda aad arki doonto inay aad ugu duunaadeen sida ay hadda yihiin. Ugu dambeyntii, Danjire Yamamoto waxa uu kaloo ka dhawaajiyay in Soomaaliya iyo Somaliland ay ku qasban yihiin inay yeeshaan wada shaqeyn dhinacyada oo dhan ah si hor u socod u noqdaan oo ay u horumariyaan. Somaliland ayaa shaacisay inay musaafurisay nin diinta Kirishtaanka faafin jiray. Somaliland ayaa maanta markii ugu horeysay shaacisay in deegaanadeeda ka musaafurisay nin haystay dhalashada dalka Mareykanka oo in muddo magaalada Berbera ku faafinayay diinta Kirishtaanka. Isuduwaha wasaaradda diinta iyo waqaafta Somaliland ee gobolka Saaxil oo maanta la hadlayay warbaahinta ayaa waxa uu ka dhawaajiyay in ninkaasi faafinayay diinta Kirishtaanka uu magaalada Berbera kusoo galay qaab ganacsi ahaan. Isuduwe Maxamed Axmed Xuseen ayaa waxaa kaloo uu sheegay in ninkaasi u dhashay dalka Mareykanka lagana soo musaafuriyay magaalada kadib markii ay ogaadeen in uu faafinayay diinta Kirishtaanka oo uu qeybinayay buugga Baybalka. Wuxuuna yiri waxaa jirta hadda muddo laga joogo 2 bilood in dhalashadiisu tahay Mareykan oo muddo sanad ah joogay wadanka. Ninkaasi run ahaantii markii ugu horeysay waxa uu kusoo galay sifo ganacsi, ma ahayn suxufi. Warkii aad ka daawanayseen Tubsan Media subaxnimadan waa nageynta. Warka waxaa idiin soo jeedinaya anigoo Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Waaberi. Fadlan subscribe saar si aad u hesho wararka iyo barnaamijyada ka baxa Tubsan Media. Sidaa iyo ammaan Allah.